shalay amba bixii aan wadaasha ku kala baxnay arrintan horta marka hore waxaan annaka aasayna dawlad ahaan waxay naga codsadeen may ahlideedu ha aasato haddaba yaan la siyaasadayn haddii la siyaasadeeyo arrintaas waxay idinka gelaysaa meel xun ama khatar bay idinku noqonaysaa oo annaku moydkaama doonay inaanu siyaasadayno inaanu ku baayactanno inaanu cid ku xumayno inaanu sharaf kale ku doonno xumaa iyo sama midna dadkiina kale ka ilaashada waaye shalay galabtii waxaa ogeedeen guddoomiyihii hore xisbiga mucaaradka ah ee waddani in uu hadlay facebookiisana dhigay hayse soo abaabuleen xisbigii waddani iyo wixii la halmaalaa mujaahidiin baa inaga dhimatay mujaahidiintiinii kalena weerca soo xidha kaalaya qaab mudaharaad lagu mudaharaadaya haddana meydkii oo kicin dambe oo dadweyne lagu samaynayo halkan waxaa fadhiya diijigii wasaaradda reer guuraaga oo asaguna jifadaa ah wax ka dhinteen labadeedaa dawladda aada uga shaqaynayna hawsha ballantaasaan soo qaadnay waxaanu dadweynaha u sheegaynaa 7 casho 6 cashay dadku mootanaayeen min khamiistii ilaa arbaco maanta ah mucaaradku inaanu meydkaasi soo dul taagin ehelyadoodana aan tacsiyadayn una tegin hadday tahay tacsi afa iyo hadday waxtar kala tahay midna ula tegin meydkaa markaanu saaka soo saaray oo annagu ambalaasyada kusoo qaadnay oo aanu keennay guryahay ka dhinteen oo aanu soo gelbinaan aanu ka hadhin oo halkaa lagu maydhay oo masaajidka aanu geynay oo lagaga tukaday waxay abaabulayeen intaasay ku jireen xisbiyada mucaaradkii siday mudaharaad dambe ama rabshado dambe hilbaha la aasayay uga dul samayn lahaayeen dawladda waxaa ka tegay aniga iyo dhiijiga gabaxaddi markaanu meesha tagnay waana la soo dhaweeyey dadweynaha wixii waxgarad ah waxaanu ugu tagnay inamo feedha qaawan oo sidii mudaharaadka lagu soo feedha qaawin jiray dadka loo soo feedha qaawiyey weer casna loo soo xidhay iyo dumar iyadoon dhaqankeenna ahayn in dumarka la geeyo xabaalaha abaabulan oo waarada lagu soo guray dadweynihii waxgaradkii cuqaashii salaadiintii dadweynuhuna soo dhaweeyey waanu nooga mahadnaqay dawladdu ilaa heer madaxweyne halkay iska taagtay khasaaraha dhacay iyo sidii looga shaqeeyey sidaa annakoo ah ayaa waxaa yimi madaxdii xisbiga waddani markay yimaadeen inamadaa ay soo abaabuleen oo kushin meelaha u taagnaan bidhaantooda arkayey waxaa lagu amray inay aniga ishiidaan waa lai soo digay odayaashii qayb ka mida baa yidhi inama halka soo baraynaya iskaga tag gaarigaaga tag iskaga tag waan soo baxay markiiba shiidku wuu bilaabmay askartii ila socotay waxaan ku amray inaanay xabad ku ridin dadka oo dhaqan bini aadam oo xabaal dusheed laga mudaharaadayo waa maalintii koowaad horta dadweynaha waxaan u sheegayaa halkaa ceebta ka dhacday ee aan qaybsanayn dadweynihii meesha joogay waxay waxgarad ahaan arkayeen waxa iskale ciro iyo cidda la talisa ama xurtada ku haysata waa dhaqankoodii halkaa markay timi annagu iskaga soo baxnay shiidka aanu waxba kuma noqon gaari baa ay ku dhaceen 2 dhagax muraayada dambe jabtay waa masala basiid askartaydu dadka waxba ma yeelin dadweynuhu waan arkayay inay iscaabiyayaan oo ayagu iscelinayaan odayaashu la dagaalamayaan wixii waxgarad ah halkaa haddaba waxaa su-aasha isweydiinta le aan isdul taagaya waxaa weeye yaa dadka shiidayay maxay ahaayeen identitygooda muxuu ah nin weyn baan ahay oo intaa leego dadka waan kala wada garanaya labada jifo ee wax ka dhinteen jifo ka mida bay ahaayeen iyo dad looma ooyaan oo dadka ciyaal suuqa iyo kudaafka ay haystaanee dadka shiida oo ayagu aabbala ah wixii damiir lahaa ama dad ahaa waxaa kuway dhaceen cunsur carabka lagama dhowraba jifada ciro ayay ahaayeen kuwa hawsha bilaabay reerka kale waxba saari maayo
waxa soo raacayna waxa weeyaan dadaan identity-ga dadkan dhintay iyo eryadooda toona ahayn oo ayagu urursadeen oo dadka ugu talagaleen nabadgelyada inay ku burburiyaan ee qaarna la hayo xabsiyada lagu hayo qaarna ay suuqyada ku jiraan oo ilaa xad loogu talagalay inay dad ku laayaan sharciyada halka waxaan leeyahay sida cirra damcay si uu ku fuulayo maaha kursi si uu madaxweyne ku noqonayana maaha sida cirra damcay waxa weeye dalkan in umalada wax ka dhaco la isdilo oo yaa isdilayaa hadduu ku socdo madaxweynaha iyo maalinkan maanta dawladda maba gaadhayo oo arrintiisu waa cawaala suqaar iyo zirooga inta ku nool baa cawaala suqaar iyo zirooga isdilaysadee arrintiisu waa maamuus iyo kaalinta ilmo shukri inta ku nool baa isdilaysa oo isku wadaa waanay bilaabantay aniga waa markii saddexaad oo aanan labada goor ka hadlin hore markii horena inuu abaabulay oo xafadooda u badan habeenkii buugii waa ogeedeen kamana hadlin juuqna kama oran maalintan 12kii ee la mudaharaadayna asaga iyo xirsi oo horkacaya ayay gurigay ku soo mudaharaadeen askartii la joogtay waa caabiday shiidayeen shiitamayeen gurigay way yaqaaneen ku talagal bay ahayd abaabul bay ahayd tana waa tii saddexaad sidaa markay u dhacdo war cirra cawaala suqaar iyo sirooga cidda ku nooli waa aniga cid kaleba ma aha halku ka gaadhay madaxtooyada dadweynaha weydiiyay Soomaaliland war kaarinta ilmo shukri iyo agoontii ilmo Suldaan Maxamed hodeelkii maamuus oo abahood uga dhintay halkeeba ya isku dilayeen inta ayaa ku dhimanaya ayaa ku dhaawacmaya iskaari mayaan cirriga cid cadaawada la rabaa manuu garan dariiqa u marayo waxana la yiri ninku hadduu ambado xaq uu ambaday gurigoodu buu moodaya dariiqii madaxtooyada uu u mari lahaa cirra uu ka ambaday dariiq khaldan buu maray dariiq jafadiisa isku dilayso isdil doonto oo nin walba wuxuu ahaa noqon doono ayuu gaadhay calanka isu keen hoday calanka haddaynu doono aynu ku heshiino sida cirra wado dee haddaynu inaku isu ciil qabno taariikho hore la ciil qabo war calanka aan yar duuduubano banaankan ay isugu baxan xadaaradan iyo wanaagan aynu gaadhnay beenta ka sheegnay muraayadahana aan ka dhex baxnayo inaga burburinay dibadda isugu baxan markaynu soo kala ciil beelo bal hadda wixii soo haraa ay isku soo noqdeen waa sida cirra wado taladeeda aniga taladeeda waxa weeye taa aan dawladda ku qaadsiiyey waxaan dowl loogu lahay ayay taladeeda ahayd imika iyo haatanna waxaan u arkaa in dalkan badbaado u baahan yahay wixii aan dawladda ka hor joognay ee awooddeeda ahayd ee sharcigeeda ahayd ee sharcigii faraa lagu qaadanayay ee aanu naseexo iyo jiirwaa tuug lahayna aanu ka daayarahayn dib u odhan mayno nin walba marna taagtaa marna tamartaa